waxaan kelmad yar ka oranayaa haddii ilaahay idmo arrinta iminka taagan sare u kaca sarifka lacagta doolarka iyo hoos u dhaca lacagta shilinka kolley waa arrin la wada ogyahay bulshaduna maalmihii u dambeeyey aad u hadal haysay siyaabo kala duwanna looga hadlayay sida ahaanba waxaa jira sababo keenay in arrintu ay sidan ama heerkan soo gaadho oo ay ugu muhiimsan tahay dowlad la'aanta iyo systemka aan shaqaynaynin ee gudaha waddanka ka jira hase ahaatee puntland wax ku gaar ah siyaalo kala duwan oo soomaaliya inteeda kale ay kaga duwan tahay ama ay kaga xoog badan tahay oo halkan ay aad uga jiraan laga yaabo inay gobollada kale ama maamul goboleedyada kale ku yar tahay arrimaha waxaa ugu weeye waxyaalaha sababay in lacagta shilinka soomaaliga ahaa oo aan jirinin bedel iyo hagaajin iyo damaanad rasmiya oo haysta midna inuu hoos u dhaco waxyaalaha keenay yani waxa ugu muhiimsan oo ay puntland la gaar ka tahay kow waxa weeye in lacagtii doolarka ahayd oo hard currency ahayd ay xariisteen dad shacab ah oo saving badan ay sameeyeen intii loo baahnaa in ka badan qaabab kala duwan ama si wax ku raadayay xalal kala duwan baa ka arkaan arrintaas kolay duruufo kala duwan ha ku riixaan laakiin waxay seefgareeyeen oo ay jeebka dambe geliyeen lacagtii doolarka ahayd weliba tii haadhka ahayd waxaa waddanka dhex maraya oo lacagta soconaysa ay tahay waa lacag digit ah lacagta digitka-ana waxaad diri kartaa inta ugu yar oo 0.1 ah ilaa intii waxa weeye adoontida ugu badan oo $100 iyo wixii ka badan ah taasi waxay meesha ka saartay isticmaalkii iyo baahidii loo qabay lacagta shilinka soomaaliga ahayd oo waxay noqotay qofkii dee meeshuu 1,000 shilin uga baahan lahaa inuu 0.1 diro oo shay waxa weeye 0.1 wax ka yar lagu iibinayay oo 0.1 keliya inta diro ama 5 senti diro xataa 0.1 wax kasii yar baa la diraa 0.10 weeye 0.1 ama 10 senti laakiin waxaa la diraa 5 senti marka arrintaasi waxay xoojisay in aan loo baahnin lacagta shilinka soomaaliga ahayd oo qiimo beesha oo meesha ka baxda ay u baahdaan keliya dadka aan lacagta doolarka isticmaalinin iyo dadka adeegan lacagta mobile money-ga aan isticmaalinin aan idhaahdo iyo dadka danyarta ee aan doolarka ku shaqaynin tusaale ahaan dadka xoogsatada ah hadday baalasho noqon lahayd hadday dad waxa weeye xamaala noqon lahayd hadday noqon lahaayeen dadka maamooyinka kabadhada la fadhiya suuqa dadka noocaas ee 1,000 shilin iyo 2,000 iyo 3,000 adeegoodu iyo badeecooyinka ay hayaan uu yahay waxay keentay in iyaga keliya ku soo harta lacagta shilinka soomaaliga ahayd oo aysan dadkii kale ee income-ka xoogaaga ka fiican soo geliyey aysan u baahanin lacag doolar oo ay soo sariftaan ay lacagtii oo digit ah ay ku wataan mobilka arrintaasi waxay keentay marka in lacagtii doolar hardka currency ahayd ay cid gaara kambaniyo gaara oo lacagta digitka sameeyay ay jeebka u gasho labo dad waxaan ku raadayay ganacsata oo kale ama arrin waxyaalo kale ka ganacsada badeecooyin kale ama dad xoogaa tujaar oo wax isku filayay iyo iyaguna baqdin dhaqaale oo ay qabaan darteed oo waxa adduunka dhan ka jirto oo sababay xanuunkan coronavirusku waxay keentay inay lacagtii doolarka ahayd iyana ay saving ku sameeyaan si yiraahdo future-ka u dhigta ama mustaqbalka wax walba ay iman kareen arrimahaas waxay keeneen in suuqa laga waayo lacag doolara oo ay iskugu soo harto lacag shilin Soomaaliya waxa kale oo ayana arrintaas sii xoojisay oo uga sii dartay waxa weeye in dadkii ay banaanka u dhoofiyaan lacagtii doolarka laftirkeedii shirkadahan ku shaqeeya mobile digitka ama mobile money transferka lacagta hawada ah adduunka ciduna ma aqoonsana lacag hawa ah oo banaanka wax kaga soo iibsan karaysid sidaa daraadeed waxay u baahan yihiin lacag hard currency oo doolar inay waddanka saaraan waxay ku soo bedelaan aanay jirinin taasina waxay keentay in lacagta doolarka ay dibadda u guurto waxa kale oo iyana saameynteeda leh xanuunkan iminka adduunka dhan dhaqaalihiisa dhulka dhigay coronaviruska oo musiibo ribaaniya ah inahaasi kolley waa ku ugu muhiimsan laakiin qodob kale oo muhiima oo asna waxaa jira aan ku darayo oo ah puntland inaanay jirinin domestic production wax soo saar gudaha ay ma jiro sidaa daraadeed waxay keentay in gobollada kale ama koonfur ha noqoto ama waxaan ku raadayay dibadda dalka ha noqoto ama gobollada kale ee galbeedka sida jigjiga iyo gobollada waqooyiga ha noqotee aynu ka soo dhoofsanaa badeecooyin kala duwan waxaynu la baxnaa marka lacag shilin Soomaaliya maaha oo
koonfurta marka la aadana shilinka Soomaaliga ay aad uga shaqeeyo oo naf ma leh lama isticmaalo xagga waqooyiga marka la aadana lacag shilin Soomaaliya oo tii Soomaaliya dawladda dhexe ay kama shaqeyso lacag Soomaaliland gaar ah ka shaqeysa galbeedka iyo Jigjiga iyo halka marka la aado ayaga laftirkooda ay qudaar badan oo kaga timaado iyadana lacag dollar ah waa khasab loo baahan yahay oo xuduudka Soomaaliya waa laga baxaya marka arrintaas waxay keentay in lacag badan oo haar ah waddanka dibadda uga baxdo oo badeecooyin kaliya lagu soo bedesho marka arrimahaasi waxay keeneen in la waayo lacagtii dollarka ahayd mar haddii lacag dollar ah la waayayna lacagta shilinka ah qiimo waa ma yeelan karayso oo waxay u baahan tahay lacag exchange in lagu sameeyo oo marna dollar qofku soo bedesho marna shilin soo bedesho arrintaasna waa tii kale ugu muhiimsanayd baa isleeyahay oo Puntland saameynta tooska ku wada lahaa waxaa jira marka arrintaani sidee la xal loogu gaari karaa maadaama ay xaaladda taagan tahay iminka dadka buuqi ka dhamaaday xal ma leedahay way su'aashu arrintan xal waa leedahay laakiin xalka ay leedahay waxa weeye mid u baahan awood dawladeed oo adag iyo in la iskaashado shacabka iyo dawladda kow waxaa horta khasab ah in lacagta shilinka ah tiradii ka badatay ee suuqa taala horta laga saaro qaabkii looga saari lahaa dawladda inay waxa weeye arrintaa dhaqaajiso oo lacagtii maadaama iyadoo number badan ah ay suuqa taalo la yareeyo oo laga xareeyo suuqa laguna soo bedelo lacag dollar oo waxa dadku ay helaan hard currency suuqa la soo geliyo si la isugu balance gareeyo labada lacagood waxaa kale oo iyana muhiim ah in dawladdu la timaado nidaam lacagtan dollarka ah ee la xareeyay ee dadku ay saving ka sameeyeen in banaanka loo soo saaro oo investment lagu bedelo marka investment la sameeyo lacagtii waxay sameynaysaa circulation oo dad baa mushaar ka helaya dadkii income baa kasoo gelaya dawladda cashuur baa kasoo gelaysa dadkii jeebka ku haysan lahaa ee iska xareysan lahaa laftirkooda lacag baa u kordhaysa oo faa'iido dheeri ah oo lacag iska oli lahayd baa u shaqeynaysa marka guud ahaan investment in la sameeyo investmentiga marka adduunka la sameynayo waxaa jira conventional economics waxay sameeyaan waxaa la isku balance gareeyaa savingka investmentiga waxaa xiriir toos ka dhexeeya savingka investmentiga iyo haddii aan lagu samogel yahay interest rate-ka inagu muslim baynu nahay interest rate ma isticmaali karno laakiin iyagu marka dadku ay saving badan sameeyaan interest rate-ka dhulka la dhigaa oo waxa laga dhigaa 1% ama wax ka yar kadibna dadku lacagtoodii bangiyada kala soo baxaan waxaana loo soo bandhigaa isla markii projects ay maalgashadaan oo ay faa'iido ka heli karaan marka waxaan ku raadayay lacagtu ay suuqa ku badato oo la rabo in laga xareeyana interest rate-ka la badiyaa dadku si ay saving badan u sameeyaan marka inagu interest rate ma isticmaali karno si arrintaa marka xal loogu helo waa in islamic projectska xalaasha ah aynu arrinteena u duuno si taa dawladdu ay u hogaamiso marka oo ay u balance garayso suuqa oo lacagtan saving ay dadku xareysteen banaanka loogu soo saaro waa in shirkadaha commercial bankska ah ee bangiyada ganacsiga ee waddanka jooga shirkadaha waaweyn ee dhaqaalaha haya iyo dawladdu waa inay iskaashadaan waa in dawladdu ay la timaadaa policy investmentiga lagu samayn karo oo sharciga islaamka waafaqsan waxaa lagu qancin karaa dadka in bangiyadu lacagta dadka ay ugu badan waxa weeye bangiyada tala lacagtu in la yiraahdo bangiyada lacagta aad haysaan maalgelin ku sameeya oo projects fuliya projectska bangiyadu ay fulinayaan 50% inuu bankigu fuliyo dadkuna 50% lacagtooda ay gashadaan waa dadka ganacsatada ah oo lacagta save garaystay oo ay shirkadaha waaweyn ugu horeeyaan markii labadoodaas ay iskaashadaan riskiga lacagta ay ku lumin karaan waa yaraanayaan oo share weeye profit badanna waa ka helayaan oo dadku waxa weeye investment waa u baahan yihiin iyo in mashaariic loo fuliyo waa midda labaad dawladda cashuur baa kasoo gelaysa oo way cashuuraysaa dadkiina shaqo abuur bay u noqonaysaa iyo dakhli inuu soo xarado dadku mar hadday income helaan oo lacag soo xarato wax badan baa suuqa iska bedelaya oo dadkii jeebkooda kor soo kacaya ama kuwa waxa weeye hoose ha noqoto ama kuwa dhexe ha noqoto ama dabaqadaha sare dadka ha noqoto inahaas waxaa weeye in dawladdu ay la timaado kolley siyaasaddii lagu jaangoyn lahaa oo arrintaa lagu xallin lahaa talooyinka ugu muhiimsan oo hadda xaaladda lagu gaari karo waa kuwaasaan filayaa wixii kaloo dadku ku darayaana waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaa khasaba si xal waara arrintan looga gaaro in laga shaqeeyo sidii lacagta waddanku ay dib ugu soo noqon lahayd oo u howlgeli lahayd taasna waxaan ku ihahday waa sida hadda wax u socdaani kolley ma aha xal arrintan kolley ku habboon lacag soo celinta dalka si
dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada guud ahaan ay ugu turaan shacabka oo ay dadka Soomaaliyeed ee dhiban ee dagaalada iyo shidada iyo argagixinta iyo dhaqaale xumadu ku habsatay ay arrintan uga gudbaan ugana gudbiyaan waa inay la yimaadaan siyaasad midaysan oo dhaqaalaha waddanka lagu hagayo haddii laakiin isjiidjiidkan iyo lagu jiro sida hadda xaaladdu u egtahay wax badani ma hagaagayaan arrintaana ma aha markii ugu horreysay ay dhacdo mana noqonayso markii ugu dambeysay ay dhacdo waa soo noqonaysa haddii asina wax laga bedelin si marka xalku uu waxa weeye mid sustainable ah u noqdo waa in laga shaqeeyaa sidii deynta Soomaaliya loo cafin lahaa xataa haddii aan la cafinaynin ugu yaraan waa in la keeni lahaa sidii kala barinta loo cafiyo inta kale habkii lagu bixin lahaa loogu heshiin lahaa waddankuna uu lacag dhaqaale lacag haad ah oo adag u yeelan lahaa loona hawlgelin lahaa bangiyada muhiimka ah sida bangiga dhexe oo kale inuu waxa weeye shaqeeyo siyaasaddan hadda aan ka sheekeynayno iyo howlahan waa shaqadiisii weeye monetary policy weeye waa wixii bangiga dhexe u qaban lahaa marka haddii bangiga dhexe aanu jirinin ama aanu function ahayn uu magacyaal yahay wax badan arrintaa kama suurtagelayaan